Galcad Media News. Galcad Media News. bismillaahi raxmaani raxiim kulan waxaan wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawa doontaan waxaa ugu dooran madaxweyne Farmaajo khudbadda qaramada midoobay xalay kaga hadlay muranka badda ee kala dhexeeya Kenya khilaaf culus oo ka taagan magacaabista guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo ku hor yimid amar hore uga soo baxay ku-xigeenkiisa Muude iyo xiisad arrinta ka dhalatay ka taagan Muqdisho dowladda Qatar oo war ka soo saartay khilaafka dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayre oo booqday ciidamo loo diyaariyay howlgal cusub maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil ku xukuntay askari dad shacab dilay warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah dhulgariir dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Indonesia hagaaga haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaradka caalamka taariikhda waxay tahay 27-ka bishii sagaalaad sanadka 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbadda qaramada midoobay xalay kaga hadlay muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay xalay shirka guud ee golaha qaramada midoobay ayaa kaga hadlay muranka badda ee ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay dowladda Kenya dadaalada ay ku taageertay dadka Soomaaliyeed xilliyadii burburka waxa uu sidoo kale madaxweyne Farmaajo uga mahad celiyay soo dhaweynta ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ee ammaanka ku haysta Farmaajo ayaa cadeeyay in dowladda Soomaaliya iyo Kenya dhowr jeer wada hadal ay ka galeen muranka badda oo fashilmay isla markaana ugu dambeyntii ay dacwad geeyeen maxkamadda ICJ Soomaaliyana ay sugayso go'aanka maxkamadda bisha November ee soo socota markaan Galmudug khilaaf ayaa ka taagan magacaabista guddiga farsamada iyo doorashooyinka maamulka Galmudug sida ay xaqiijiyeen xubno ka mid ah wasiirada maamulka Galmudug khilaafka ayaa yimid kadib markii odayaasha dhaqanka Galmudug ay ka soo horjeesteen inaysan talo ku yeelan magacaabista guddiga isla markaana aysan la shaqeyn doonin haddii wasaaradda arrimaha gudaha kaliya ay magacaawdo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarfan ayaa ku guuldareystay xalinta cabashada waxgaradka Galmudug oo sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay soo xulayso xildhibaanadii laga rabay in ayaga soo xulaan waxaa sidoo kale odayaasha dhaqanka badankood ay ka biyadiidan yihiin in saami muuqda la siiyo ururka Ahlus Sunna oo ka talinayay magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb waxaana ay codsadeen in la maro sifo sharci ah oo odayaasha dhaqanka ay soo xulaan 89 mudane dowladda Soomaaliya ayaa wada hadal iyo dadaalo lagu xalinayo khilaafka ka taagan magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug ka wada magaalada Dhuusamareeb Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaatay go'aan ku saabsan inuu shaqada u fasaxo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka guddigan ayaa waxaa horey u kala diray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Muude oo soo saaray waraaq gudoomiye Mursal ayaa shaqada u fasaxay guddigan oo horey loo sheegay in la kala diray taasoo ay ka dhalatay muran badan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa dood badan ka dhex dheliyay fadhiga baarlamaanka sidoo kale waxay muddo walaac geliyeen xukuumadda Soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen musuqmaasuq maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa waxay soo gabagabaysay kiiska dil qof shacab ah loogu geystay deegaanka Beergadiid oo ku yaala duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kiiskan waxa ku weydiisnaa 3 askari oo ka tirsan ciidanka booliska gobolka Hiiraan kuwa oo magacyadooda la kala yiraahdo Maxamed Ibraahim Maxamed Umar Faarax Indi iyo Farxad Shariif Maxamed maxkamadda ayaa waxay xukun dil toogasho ku riday Maxamed Ibraahim Maxamed kana tirsanaa booliska gobolka Hiiraan kadib markii uu ku cadaatay inuu dilka ka dambeeyay
maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay Farxad Shariif Maxamed iyo Cumar Faarax oo iyagana kiiskan ku eedeysnaa kadib markii lagu waayay wax dambi ah sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 7-aad gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 7-aad Dhamme Maxamed Cabdulle Aadan Amiin ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka maxkamadda ay riday sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku dhawaaqay in xukunkan uu ka furan yahay racfaan. dowladda Qatar ayaa war ka soo saartay khilaafka dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya. dowladda Qatar ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay ka gudbaan khilaafyada kana wada shaqeeyaan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hanaanka siyaasadda dalka, loona xoojin lahaa dadaalada dib u heshiisiinta qaranka, loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa sare loogu qaaday xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda asaasiga ah. Qatar ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya inay mideeyaan dadaaladooda si taageero farsamo iyo mid maaliyadeed u siiyaan horumarinta hay'adaha dawliga ee Soomaaliya. taliyaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa ku baaqay in la ilaaliyo guulahan isla markaana laga shaqeeyo sidii looga gudbi lahaa wajiga xiga. dowladda Qatar ayaa sheegtay in 27 Oktoobar ay martigeli doonto kulan heer wasiir ah oo kooxda xiriirka Soomaaliya ururka iskaashiga Islaamka iskugu imaanayaan. xiriiriyaha waaxdan ayaa xusay in dowladda Qatar ay dib u xaqiijinayso sida ay uga go'an tahay inay xushmayso madax-bannaanida, midnimada iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya, isla markaana ay garab istaagto dadka Soomaaliyeed ayna sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare ayaa booqday ciidamo loo diyaariyay howlgal cusub. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xirada General Gordon iyo kuliyadda Jaalasiyaad ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaariyay howlgal Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay weli ka maamulaan dalka. Kheyre ayaa sheegay in dowladda ay dardargelinayso tayeenta, qalabaynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida. ciidamada, macallimiinta iyo saraakiisha hogaaminaysa ayuu Ra'iisul Wasaaraha uga mahad celiyay dadaaladooda nafhurnimada ah ay ku badbaadinayeen dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna kula dardaarmay inay door fiican ka qaataan howlgallada shacabka Soomaaliyeed looga dulqaadayo dhibaatada. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ciidanka ugu tagay dhiirigelinta shaqada ay qaranku u hayaan iyo inuu ogaado baahida qalab ay qabaan ayaa ciidamadu u cadeeyay in dowladda muhiimadda koobaad siinaysa bixinta iyo hagaajinta xuquuqda ciidanka ay u leeyihiin qaranka Soomaaliyeed. dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidanka ku sameysay dib u habeen ballaaran ayaa wado qorshe dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab, arrintaas oo qayb weyn ka ah halbeegyada tubta amniga iyo hanaanka ciidamada Soomaaliyeed ay kula wareegayaan mas'uuliyadda dalka. shirka golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlay arrimo xasaasi ah. golaha wasiirada Jubbaland oo shirkoodii toddobaadlaha ku yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda cakirin ee maamulkaasi. shirka ayaa waxaa gudoominayay Axmed Madoobe iyadoo diiradda lagu saaray amniga, dastuurka, dib u dhaca ku yimid xafladii caleemasaarka Axmed Madoobe iyo arrimo kale. xubnaha golaha wasiirada ayaa ugu horeyn ka dooday xaaladda ammaanka deegaanada Jubbaland iyadoona golaha ammaanka heer dowlad goboleed looga dalbaday inay soo gudbiyaan habraaca cusub ee sugidda nabadgelyada, taasoo ay ku shaqeynayaan hay'adaha nabadgelyada maamulkaasi. waxaa kale oo golahu warbixin ka dhageystay wasaaradda dastuurka, taasoo la xiriirta hanaanka dib u eegista dastuurka qabyada ah ee dalka. sidoo kale golaha wasiirada Jubbaland ayaa ka dooday dadaalada wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaas ay ku bixinayso sidii loo soo gabagabeyn lahaa dhammaan tabashooyinkii ka dhashay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo. arrimaha kale shirka looga soo qaado waxaa ka mid ah dib u dhici ka yimid xafladii caleemasaarka Axmed Madoobe oo lagu waday in shalay la qabto. golaha ayaa sheegay in waqti kooban kadib la qaban doono, isla markaana dhawaan Kismaayo ay soo gaari doonaan wafuudii ka qaybgeli lahayd caleemasaarkaasi. markaana daawadayaal warkii dibadda. dhulgariir ayaa ku dhuftay jasiirad ku taala dalka Indonesia. inta la xaqiijiyay 20 ruux ayaa ku naf weysay dhulgariir ku dhuftay jasiiradda Maluku oo ku taala bariga dalka Indonesia. afhayeen u hadlay hay'adda maareynta masiibooyinka dalka Indonesia ayaa u sheegay warbaahinta dhulgariirku aad u xooganaa in uu burburiyay inta badan dhismooyinkii magaalada. wararku waxay sheegayeen in xarumaha caafimaadka la geeyay ku dhawaad 100 ruux oo dhaawacyo ah. qiyaastii 2,000 ruux ayaa ka qaxay magaalada sida warbaahintu sheegtay. magaalada kale Ambon ayaa laga dareemay dhulgariir waxaana dadku iskugu soo baxeen wadooyinka magaaladaasi. dowladda Indonesia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo jasiiradaas lagu soo rogay, waxaana deegaankaas loo diray kooxaha gurmadka. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelin.
Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.